kusoo dhawaada idaacadda codka Soomaalida. Maanta ummadii oo dhan waxay ku xaydaamatoo ku xidhantay guryihii masiibada nagu dhacday ee fayraska awgeed. Xataa iga sii darayd islaamihii baa isku mashquulaysa oo meel walba iskaga soo baxaysa guriga dhexdiisa. Suuqa lagu kala nabad qabay. Inaan saaxiibnahay oo dadka guryaha ku xidhan baa ila soo hadlay wuxuu wareedhe waraaqaha rifrifan mudooyin riyo cuneen barnaamijkaagii hore ku duubtay ka labaad ka taxadiro yaanay soo bixi. Soomaaliya oo dhan baa urga qooqanay ay daaqday waan ku ilaa ay tahay sagaagtana la bedeli maayo waa lagu wadayaa. Failed state wadan saaqday ama wadan saqiiray Soomaaliya ugu horeyso wadamo fara badan ayaa nala wadaaga. South Sudan baa kamid ah, Libya, Iraq, liisku saasu buusi soconaya. Dagaalkii labaadna waa ogeydeen oo Yurub oo dhan ayaa baabaaday, galbeedkeeda iyo barigeedaba Germany ugu xoog weynaatay, Ingiriisku ku xigo. wala isugu yimi caalamka oo dhan baa isugu yimi waxaana la geliyay hanti aad u culus si loo ilaaliyo aanay sayqadnimadaasi caalamka oo dhan aanay ugu beerin. wuxuu hashi kudna dil waxna waa u dheeri nabarka Soomaaliya ku dhacay waxa weeye intaas oo shisheeyay ayaa gacantii ugu jira oo qaarna maxalli yihiin qaarna ay dibadeena kaga yimaadeen dawladaha maxalliga Masar meesha la yiraahdo Ethiopia, Kenya, khaliijka carabta oo imika lacag helay barigoori siyaasadii wadaarmaha dibadda ahayd mid degan oo aamusan dadka soo dhexgelin. Talyaaniga oo EU da wakiil nooga ahaa intaasoo wadax marka xarbil wakaala dadka Soomaalida isdilay ama siyaasadda isku hayaan ama xabadda isku hayaan intaasoo madax oo soo gashay ayaa soo gashay oo meeshii ku dhex hirdamaysa taasayna la circiraysaa in dib loo dhiso qaran la dhisaa wax sahlan maaha. State buildingu ama rebuildingu waxa weeye ilmo yaraad korinayso ilmaha yarintu kugu qaato waa aragtay waa in marka hore la seexiyaa la hagaajiyaa sariirta la geeyaa uu gurgurtaa uu socod bartaa intaas oo dhan wadan u baahan weeye meesha aynu maraynaa. dhismaha qaran wuxuu u baahan yahay dhaqaale, wuxuu u baahan yahay xoolo, wuxuu u baahan yahay siyaasad la dhiso, nidaamkii siyaasiga ahaa ee dadka isu wada keeni lahaa in la dhiso. laba dariiqo unbaa caalamku u maraan markaa sidii wadan loo soo dhisi lahaa. mid waxa weeye in la promote gareeyo dadka wadanka leh, state-ka leh ama la taageero oo la riixo dhaqaaliyo waxay u baahan yihiin ayagu cagahooda ku istaagaan. ka labaad waxa weeye in mas'uuliyadda laga wareego oo qof wala loo qoro oo ay noqdaan maxmiyad sidii Iraq oo kale ka dhacday ee Bremen loo dhiibay markii ciidamada Mareykanku galeen inay inta cagahooda ku istaagaan isaga si haynaya xaakimka madaniga ah. labada waxay ku dambeeyaan fashil sida u badan intaan ka soo aragnay taariikhda adduunka. Soomaaliya 1993 ilaa 1994 wakii Mareykanku isku dayay inuu badbaadiyo wixii ka gaarina waa ogeedeen ee kala gaaray Soomaaliya iyo General Aidid. markaas adduunkii inaga qusteen oo la yiri isbudoodii xun inanteeda waa lagaga siibtaa. 40 sanadood bay ku qiyaaseen dadka aqoonyahankii ugu yaraan inay qaadato in dawladdu u soo dhiso marka ay burburto ay noqoto disintegrated sida Soomaaliya ka dhacday. waayo dagaalkii qabooba marka laga soo noqdo waa meesha kaliya ee tusaale loo soo qaato ee biyatooni ilaa madaxweyne ay marka wada baxeen ee la isku soo yaacay ee dadkii garan waayeen halka loo dhaqaaqa halka laga soo bilaabaa maxaa la qabtaa. waa si wanaagsan siyaasadii dhaqaalihii iyo nidaamkii loo dhisnaa saddexdiiba way naga burbureen. hogaamiye meelo soo baxay intii dawladii dhexe ee militariga ay naga baabaaday. laba nooc oo hogaamiyayaal ayaa soo maray. labada nooc ee hogaamiyayaasha soo maray hogaamiye waxa la yiraahdaa dadka caalamka isu la qaateen oo yiraahdaa nin danaysta ah kaasi isagu meesha waxoogay ka urursada suur ka xidha marba wadanka dega hadhow marka doorashada kala timaadana iska dhaqaaqa. waa intaas ay dantiisu ay midna waa hogaamiye daacad ah laakiin aan karti lahayn aqoon lahayn meel u kaashadan lahayn. labaduba way saqiiraan oo failed ayay ku dambeeyaan. halka ugu horeysa marka dhaqaalaha la helo ee ciidan laga soo dhisaa ee dawlad laga soo dhisaa waxa weeye in ciidan qaran oo aan qabiil ahayn la helo oo dadka oo dhan wada matala nabadgelyada ilaaliya horumarkii ka shaqeeya masiibooyinka la dagaalama ciidankaas oo leh caqiidad wadaniyadeed oo uu ku dagaalamayo sidii ciidanka Masar oo kale markii uu ka dhacay halka dadka mudaharaadka ee uu Xusni Mubaarak la hadlay ninkii generaalka ahaa ee ciidanka hayay ama marshaalka ahaa Dandaawi ee uu ku diyaariyay taangiyo ku soo kici dadkii xorriyadda taagnaa dadka looma tababarin buu ciidanka ah aan meesha ku hayo inay dadkooda laayaan. waa inay halka gaarsiisnaan karaan ciidanka qaran ee cusub ee Soomaaliyeed la doonayo si dadka oo dhan ay kalsoonidii dawladdu ugu soo noqoto. madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimi muxuu wadanka ku soo kordhiyay muxuu ku guuleystay qof aan wax qabanay ma jirto. madaxweynahaasi wuxuu ku guuleystay caalamka inuu dib ugu soo celiyo
oo kumeelgaadhkii uu inaga saaro oo aynu noqono dowlad caalamka la xisaabtami karaysa. nabadgelyada waddanka miyuu wax ka qabtay? may waxba kama qabanin, kamana qaban karaynin, waayo 22,000 oo askari oo amisom ah ayaa la keenay oo nabadgelyada Soomaaliya wax ka qaban karooyay. waxa inaga nagu kaliya curadana maaha, adduunyada oo dhan ayaa maanta phenomenon-kan yimi ee diinku dagaalanka ah loogu taaglayahay. 200,000 oo askari ayaa la geeyay waddanka Ciraaq. maanta xaaladda ay maraysana waa ogtiin 15 sanadood ee 130,000 oo askari ka dagaalgelayeen waddanka Afghanistan la yiraahdo oo walba reer galbeed ah oo aad u xoogan 15 milyan lacag ka badan bilyan lacag ka badanna waa la geliyay. xaaladdeedu halkay maraysaa waa aragtaan. Congo xaaladdeedu halkay maraysaa waa aragtaan. South Sudan, Libya, marka lama oran karayo waa wax Soomaalida u khaas ah ilaa la helo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo xoog leh oo aynu biilan karno inagu aynu bixin karno mushaharkiisa si aanay noogu dhicin wixii ku dhacay ciidankii hore ee militariga Soomaaliya ee la dhisay ciidankii labaad ama kii saddexaad ee ugu xooga weynaa Afrika waqtiga, laakiin mushaharkiisa laga bixinayay Moscow markay Moscow naga dhaqaaqdayna meel ay u dhaqaaqnaan garan weynay ay noqotay ido joogsaday. waa wanaag muqdisho ciidankii joogay ee Xasan Sheikh waxay ku qiyaastay United Nations inuu ahaa 5 brigade ama 5 guuto uu markaa intuu qalabeeyay markuu nimankii warlordska ahaa ee meesha joogay uu hubka ka soo ururiyay indha cadde hadii la yiraahdo iyo ninkii wadaadka ahaa Alxaaj labada markii hubka laga soo ururiyay 5,000 baa lagu qiyaasay. laakiin waxay caalamku u arkeen 5,000 inay ahaayeen 5,000 oo nin oo isku reera oo halkaa wada jooga. marka ciidan qaran laguma tilmaami karayo, waa ciidan qabiil sida kuwa kale ee maamul goboleedyada joogaba oo mid walba ciidan intaa leegu samaystay oo ciidan qabiil ah oo hortaagan ummadii aan u danaynin waxba u qaban, laakiin iyaga lagu haysto cashuurtana lagaga gurto. madaxweyne Farmaajo markii uu xukunka kala wareegay madaxweynihii hore ee Xasan Sheikh, Soomaaliya oo dhan waxay yiraahdeen Farmaajo iigeeya, wax kale ma ahayne ummadda oo dhan ayaa u oomanayd in mar la arko wax mowqif haya Soomaalinimo ah oo ku doodaya waxaan doonaynaa inaan soo celino haybadii iyo sharaftii Soomaalida. had muxuu ku guuleystay madaxweyne Farmaajo? madaxweyne Farmaajo waxa uu ku guuleystay arrimihii dibadda oo sumcaddii Soomaalidu ay dib u soo noqotay oo wax laga yara dhageysto inkastaan wax badan laga dhageysanin. wuxuu kaloo ku guuleystay inuu dhaqaalihii dib u kaco Soomaaliya oo 2.8 IMF ku qiyaastay inay inoo soo korodho sanadkiiba xilligan lagu jiro. wuxuu kaloo ku guuleystay ciidamadii qabaa'ilka ah ee banaadir hareeraheeda joogay in la mideeyo laguna soo daro ciidamo kale oo Soomaaliyeed oo qabiil waliba iska dhaxarkayo. haddaba halkay sartu ka qorantay dowladda federaalka? sartu waxay ka qorantay siyaasaddu waa barkad biyo ka buuxaan oo lagu dabaasho. ninkaan dabaasha aqooni markuu isku tuuro dhusinkuu tegayaa. ka inta yar yaqaanaa hadduu xatabadaha gaadho isaga buresida, ka kale hadday barkadu maran tahay aanay biyo ku jirin sagxaduu madaxa ku dhufanaya. Soomaaliya waxay u baahan tahay si bareer ah dowladda federaalka ee joogta uu hogaaminayo Farmaajo in xaqiiqda Soomaaliya halka ay marayso loo sheego. dhaqaale la'aan, ciidan la'aan, rajo la'aan, si toos ah in loogu waramo oo loo sheego xaqiiqda dadka ee aan durbaan loo garaacin ah niyad wanaag. shakiinagama jiro Farmaajo inuu yahay niyad wanaagsan oo laakiin siyaasadda niyad laguma kaxeeyo ee waxa lagu kaxeeyaa qorshe. halkaynu joognaa, halkaa loo socdaa, maxaa caqabadooyin hor yaalla, dariiqee baa loo raacayaa, kaa weliba inaan arag. afkii aftahanimada ahaa ee Soomaaliga ahaa ee ummadda lagula hadlayay ee qalbigooda soo jiidan lahaa ee u sheegi lahaa khatarta meesha taalla. dagaalkii 2 May 1940 Churchill markuu arkay inay Hitler isayaan oo Ingiriiska 2 jeer ama 3 jeer ka xoog weyn baarlamaanka dadkiisa markuu soo hor istaagay ereyadii uu ku yiri waa wada xusuusataan. dhidid iyo dhiig iyo tacab, saddexdaas waxaan ahayn oo aan arkaa ma jirto, iyo baroor oo meydku bato. intaa wixii ka dambaysa ayaynu ka wada hadlaynaa halka uu Ingiriisku u dhaqaaqayo. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in xaqiiqda dadka loo sheego Soomaaliyeed, maadaama dadka Soomaaliyeed 75% ay dhalinyaro yihiin, aanay system dowladeed ku soo korin, rajo kuma noolaan karaan, waayo waa in wixii loo ballan qaaday dib u soo noqdaan. haddii kale waxay taasi keenaysaa inay sumcad xumo ku timaado dowladda federaalka ah ee maanta joogta. wata kale maaha inay isku soo koobaan dowladda federaalku xukunkooda hal urur lagu soo koobo maaha. Soomaaliya maanta waxay saaran tahay naxash. mar hadduu qofku kooma galana waa in loo keenaa 26 dhakhtar oo midba uu wax ku takhasusay. waa inay ballaadhiyaan, wacyigelin waa in la helaa, waa in wax xaqiiqo ah ay dadka dib ugu soo noqdaan oo qorshaha dadku ay fahmaan xaaladda Soomaaliya maanta ay marayso in aan ahayn xaalad 4 sano lagaga baxayo
ama 6 sano lagaga baxayo ama 12 sano lagaga baxayo laakiin waa in la helaa wacyigelin rasmi ah oo qorshe leh oo meel la ka socota meel la ku socota wadaninimo ayaa loo baahan yahay in dadka lagu baraarujiyo sababta arrinta waxa kaliya isu keeni karaya maanta waa wadaninimo laakiin ma aha historic ummadda Soomaaliyeed ay inta la yiraahdo la aamuso oo waxay xambaarsan tahay ba la garan waayo ummadda Soomaaliyeed hore u maqlo oo ma jirtee maxaa ku soo darteen taasi loo baahan yahay xaqiiqdii inay dib isugu soo noqdaan shacabkii madaxweynahan doortay iyo isagii maadaama boqolkii imika 70 ay u egtahay inta sii taageersanay intii kalena ay weyday madaxweynahoodii iyo message-kii uu siday muxuu ahaa xaqiiqda waa in la horkeenaa wixii la qabtay inta aan doorashada dambe la gaadhin waxaa jirtay mahmaah carbeedoo nin safar ahaa oo aan baxayay ayaa wuxuu damcay inuu baxo laba nin buu yidhi warkaanay sii dhaweeya markii istaankii la gaadhay tareenka ee ka bixinayeen baa la arkay tareenkii oo taagan oo siiriga la afuufayo saddexdii ninba way ku yaaceen ninkii safriyay labadii nin ee si maca salaameynayba ninkii waa dhacay la safrinayay labadii nin kasii ordayeen ayay juuq yiraahdeen waxay galeen tareenkii uu la dhaqaaqay ninkii la dhoofinayay lama kaxaynine labadii nin ee ninka si maca salaameynayay ayaa tareenka hore u sii raacay waxaad moodaa maanta maamul goboleedii Soomaaliya ee doonayay in iyagu dawladdan iska masaafuriyaan maadaama dawladdan iyaga ku soo adkaatay ay tareenka sii saaraan in iyaga tareenkii raaceen oo shacabkoodii ay u cadaatay arrintaana waa in dawladda federaalku ay ka faa'iideysataa waqtiga maanta jooga haddii kale iyaga ayaa dhici doona ay shacabku tareenka saari doonaan oo shacabkuna waxay u soo hari doonaan dadkii aynu naqaanay ee meesha joogay maanta Soomaaliya ma joogto meel kursi la isku qabsado oo la isku dilo oo durbaan qabyaalada dib loo soo garaaco dee qabyaalada Soomaaliya wax tarayso 30 sanadood ayaynu soo maray gabdhaheenii ayaa Yaman ilaa badda Mediterranean-ka xaaladda ay kaga jiraan ilaa Suudaan ay ogtihiin mujtamacii Soomaaliyeed ee waddanka u shaqayn lahaa iyo xooggiisii soo korayna qurbe ayuu ku naanaabay oo carruurteenniina waa aragtaan afkii Soomaaliga ayaa sii dabar go'aya sidaa awgeed halka waxaan uga soo jeedinaynaa waxa weeye waddanka naxashka saaran xaqiiqda marka laga hadlo waa inay si toos ah dawladda federaalku intay u soo baxdo ay ummadeeda u cadaysaa haddii kale dadka maamul goboleedyadu gacanta ay ku haystaan ee aan dadkaas oo aan ogolayna nimanka burcad ah ee maamul goboleedyada ah ee dadka halka ku urursaday dadkaasi way ka quusan doonaan dawladdii federaalka ay wax badan ka filayeen waana in la ballaariyaa oo la helaa ugu yaraan 100 ama 200 ama 300 oo qof oo think tank ah oo Soomaali leh oo ajnabi leh oo dad kale leh si meesha loo soo kabo dhammaantiin waa mahadsantiin